Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta dhammaan soo dhowaada. Meeshaan ka daawanaysaa Mustafa Daahir Official. 13 bishii lasoo dhaaftay waxaa dagaal dhex maray Iiraan iyo Israa'iil. Israa'iil oo weerara. Waxayna duulaan ku ahayd barnaamijka nuclear-ka ee Iiraan oo iyadu isku dayaysa inay nuclear samaysato. Marka dagaalka markuu dhammaaday xaruntii Maraykanku asaga weeraray saddexdii xarumoodii waaweynaa ee Bardow iyo Natanza iyo Isfahan. Marka isagoo isticmaalaya diyaaradaha B2 duqeyntaa ka bacdi Iiraan dhowr walba ka soo baxay mar waxay tiri waa la burburiyey, mar lama burburin. Shalay maalinta u dambeysana wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu yiri uraniumtii macnaha la kobciyey waxaan geynay meel amni ah. Cadaadis baa lagu saaraa waa burburtay dheheen awal. Laakiin hadda asaga wuxuu tagay ma burburin meel baan dhigan. Laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay wuxuu yiri Iiraan ba waxay tiri hubka nuclear-ka in la samaystaa waa xaaraan diinta Islaamka. Marka waxa lala yaabay noqon diinta macnaha hooyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa carruurtiina bara legdanka iyo waranka sida loo tuuro iyo fardaha sida loogu dagaalamo intaba in la baro. Laakiin ayagu waxay taagan yihiin waa xaaraan nuclear in la samaysto. Marka anigu isweydiin waxaan iri si xaaraan ku tahay. Laakiin waxa la yaab leh in waxay rabaan ideolojiyadda in ka dhaadhiciyaan shucuubta caalamka oo aan muslimka ahayn in diinta Islaamka oo aysan ogolayn in nuclear la samaysto. Nuclear in la samaysto diinta Islaamka ma ogola. Saasay rabaan dhahaan. Maxaa adigu ku tilmaami lahayd arrintaas? Koley waa mari habaabin baa la yidhaha waxaas. In iska dhigaan macnaha dad aan rabinba nuclear inay samaystaan. Laakiin way rabaan. Dhowr jeeraa laga fashiliyey. Cunaqabataynaa lagu soo rogay. Haddana waa la dhex joogay. Marka hadii dhibaatooyin badan baa nimanka haysta. Marka waxaan dhihi lahayn kulli barnaamijkaas waa barnaamij la yaab leh. Sida macnaha la yaabka u tahay waaye uranium in nuclear inaan samaysan diinta Islaamka ma ogola. Diinteena ma ogola. Ana gaalada laga gadayaa miya. Maxaa ku tilmaami lahayd adiga warkaas oo kale? Wax ka dheh. Barnaamijka horta intaas aan ku talagalay aan kala hadlo. Qaalada xoogaa iska soo daadaahayaan. Insha Allahu tacaala soo dadaalin haddii Ilaahay yiraahdo. Adinkuna meesha nimanba maandhood waxay dhaheen subscribe maxaa laga wadaa? Subscribe waxaa laga wadaa rukun baa laga wadaa. Rukun noqon marka insha Allahu tacaala aad waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.